kaabayaasha dhaqaaluhu waxay qayb weyn ka qaataan horumarka ganacsiga iyo dhaqaalaha. dowladda Puntland iyo shacabkeeda waxa guul u ah in taariikhda markii ugu horeysay ay yeelanayaan garoon caalami ah oo la heer noqday garoomada caalamiga ee dunida ayna ka soo degi karaan kana duuli karaan diyaaradaha waaweyn. garoonka Boosaaso ee maanta la furayo ayaa sanadkii 2014 u dhismihiisa casriyiintiisa iyo balaarintiisu uu dubi bilowday waxaana xilligaasi furay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali. waxaan sheegayaa marka ku bishaareynaya 10 bilood gudahood Puntland waxay yeelanaysaa hal international airport. 18 bilood gudahood waxay yeelanaysaa 2 international airport. 2 sano gudaheed waxay yeelanaysaa 3 international airport. dhaqaalaha mashruuca lagu dhisay garoonka diyaaradaha ee Boosaaso waxa ku deeqday dowladda Talyaaniga waxaana dhisay shirkad Shiinaysa. I want to tell everybody we will try to work 24 hours and to finish the airport end of the December for the main line, and we hope that this airport will opening in end of January. Thank you, Maasante. intii uu socday qayb lixaad leh ayay wasaaradda duulista hawada iyo garoomadu ay ka qaadatay la socodka hadba meesha uu marayo dhismaha garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. garoonka Boosaaso ee Bandar Qaasim ayaa meelahan xusi karnaa sida heerka sare loo dhisay waxa kamid ah runway-ga ama dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan oo dhererkiisu ku dhow yahay 3 kiiloomitir. wasaaradda duulista hawada iyo garoomada ee dowladda Puntland ayaa si dhow la socotay dhismaha garoonkan iyadoo welina ku howlan sidii loo horumarin lahaa dhan kasta tayadiisana kor loogu sii qaadi lahaa. marxaladaha dhismaha garoonkan uu soo maray iyo qorshayaasha furitaanka kadib u degsan ee lagu soo horumarinayo ayaa isna waxa ka warramay mar aan booqanay wasiirka wasaaradda duulista hawada oo xitaa ka dhawaajiyay inay qorsheysan tahay in dhawaan xilliga habeenkiiya diyaaraduhu ay ka duuli karaan ayna ka soo degi karaan. hadda shaqo fiican baa la qabtay. shaqada ugu horeysa oo ugu muhiimsan oo la qabtay waxa weeye terminalki garoonkana siisa waxa ay terminalka ma runway-ga garoonkana waxa ugu muhiimsan waa runway 2 kiiloomitir iyo 400 oo inta la dhisay waa garoon caalami noqon kara ilaa diyaaradaha wadanka Soomaaliya yimaado dhan inay isticmaalaan. wuxuu kaloo garoonkan uu kaga fiican yahay garoomada kale waana ka balaaran yahay waana ka culays qaad adag yahay waxa loogu talagalay inuu sii dheeraado diyaaradaha ka sii waaweyn hadhow caalamka soo degi karaan. marka waa garoon design-kiisu aad u wanaagsan yahay oo u weyn. waxa kaloo la qabtay terminalkii hore qadiimka laftigiisa dib u habayn iyo balaarin baa gudaha iyo qurxin baa lagu sameeyay qaybtii VIP-da lagu daray qaybihii kale oo dhan waa la hagaajiyay oo la balaariyay xafiisya lagu daray. marka shaqo fiican baa halka laga qabtay. alaabta handlinka ama garoonka laga adeegona alaab modern la keenay oo iyaduna garoonka lagu furayo heer caalamiya. sidoo kale shidaalkii servicesidii kale dardamiskii waxyaabihii loogu talagalay in garoon caalami noqdo dhan waa loo soo diyaariyay. marka shaqo fiican oo runtii garoon caalami ku furmi karo waa meesha laga qabtay. xilli aan tagnay dhawaan garoonka oo gabagaba maraya ayaa waxaan la kulannay qaar ka mid ah qaybaha bulshada kuwaas oo muujiyay dareenkooda farxadeed ee ku aadan dhamaystirka garoonkan casriga ah. aad u faraxsanahay maanta inaan soo booqanay airportkan dhererkiisu dheer yahay oo tiro badan yahay oo caalamiga ah oo magaalada ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso maanta ku soo kordhay. asagoo aan rajaynay waxa weeye in shaqadiisa waan la furo oo diyaaradu afar saacad ka degaan. meesha tan waxa la yiraahdaa hadda aynu taaganahay meesha airport touchdown-ka diyaaradu ka degaan markay diyaar soo fariisanaysaa meesha ugu horeysa cagaha dhigan calaamadaha ka tilmaamayaan touchdown-ka ugu horeeya diyaaradu ku soo degaan. kabacdi markay touchdown ku degto horey u soconaysaa ilaa iyo waxay keenaysaa meesha ugu tawdo kabacdigeedna waxa ku leexata taxi way-ga halkaas oo ka raacay diyaaradu. dadka habaa isku diri jiray diyaarada daaqadeeda ka gali jiray iyaguna maanta waxaan maraynayaa anu ma raaci jirin diyaaradaha hadda ragga baabuurta u badan baan ahaa laakiin ayagana waxaan maraynayaa maanta waa u guuleyseen kuwa airportada yaqaan habaaskii inay ka raysanayaan beela tahay. insha Allah waxa la inta kale waa dhiman tahay waa noo muuqataa dhiman tahay ayadana si degdeg loo dhameystiro baan Ilaahay ka filanaa haddii Allah idmo Ilaahay noo qalqo wadanka dhammaan Soomaaliya guul buu ku dambeynaya aakhirkiisa waliba waqti dhow. dowladda Puntland ee uu hogaaminayo Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa sidaa in badan ku celisay waxa ka go'an inay horumariso kaabayaasha dhaqaalaha kuwaas oo dal kasta uu ku horumaro waxaana dhawaan isna bilowday oo madaxweynaha dowladda Puntland uu daafuray
dhismaha garoonka diyaaradaha ee Garowe oo noqon doona isna garoon caalami ah. haddaan ku talagalno annagu inaan wax qabsanno waxna waa qabsan karnaa cidna taageerana waa yimin insha Allah waan rajaynayaa sidii ballanqaadkeenu ahaa garoonkii hore oo Boosaaso waa dhamaaday dhawaan baan furi doonaa insha Allah kana insha Allah sida qorshuhu yahay hal sano gudahood inuu ku dhamaystirmo ayaan rajaynayaa waxaan ballan qaadayaa waxa weeye garoonkan inuu dhamaystirmo sidoo yahay inuu u furo aniga madaxweynaha inaan cidna ku haleyn doonin waan hubaa wasaarad iyo hay'adda dhisaysa iyo intuba in ay shaqo fiican qaban doonaan laakiin ballanqaadkaas dadka Puntland ay sugayaan inuu sidoo yahay u fulo waxaan hortiina ka cadeynayaa inaan qofna ku haleyn doono anagu aan dul joogi doono insha Allah dilaayay laysuma khilaafi qadir ina gargaari dalkan hora u qaadno qaybkeenan gaadhne laysuma khilaafi qadir ina gargaari dalkan hora u qaadno qaybkeenan gaadhne waliba wuxuu qabay yaqaana loo soo qatimaya